السلام عليكم ورحمة الله. مقعد سحب الواجيل بشير. ويلكم باك تو ذا channel. ما أنت واحد سحب الموقالك إن أجو هذا سببته بلاه جولاي أغسطس سبتمبر دتك خبيرين تا أي سوق عن مالكستان نورمال سحب الهستوريكالي بلاه سمر كسوق ووضعتها سمر كهدي أهرادين يصير جود انتري أمال السوق أعتقد فيديو كان سحب وفيديو جوية سوق كلا واحد سحب على قائد دول الموقال كنا أسكول فينا كويرانك يماركت كأفضل تكس قدام بي أبديت كداعي وقران سحب الواحد سلف فينا إلا اللي بيتون كوين وجوين سوقان مرحلة ذو الكوتشرين اللي كان لوجود السمر هستوريكال ساحب يال بلها جولاي أغسطس سبتمبر سوق كريبتو كارنسي وصوداتها سببتنا ساحب يال waxa keenayso traders iyo investors badan xiliyadan fasaxyo qaataan fasaxyada saaxib yaal waxa keenaysa marka market volume inuu hoos u dhaco halkaas marka suuqa wuxuu ka bixinayaa saaxib yaal discount inuu suuqa dabcan waxa weeye oo correction sameeyo soo marka meesha waxa ka banaana saaxib yaal fursad kale fayso normal saaxib yaal sida waxa weeye shaqooyinka 95 ka ay dunida dhamaysaa la socota bilaha July August iyo early September ama early September week labada week ama usbuuc ugu horeeyay September suuqa wuxuu bixiyaa fursado maalgashi discount fiican buu bixiyaa taasoo keenaysa qof kasta inuu hoos ka soo raaco marka if you have been waiting for a good entry waa chance kaas ina waxa way normal ka faa'iidsad weeye hadda last week saa la socotay bitcoin waxa la geeyay 111 baa la geeyay inkastoo hadda 140 ee marayso halkaas baa runtii lagu celcelinaya soo marka waxa soo dhan saaxiib yar wuxuu bixinayaa mataqaana fursad saa la socotay saaxiib yar bishii hore July BTC waxa sameeyay all time high 123 meelaas bay gaartay soo marka waa dareemi kartaa 123 iyo 111 farq u dhaxeeya wali mataqaana toomir gudahooda inuu meesha normal saaxiib yar ku soo laabto markastan ogow saaxiib yar bitcoin markay sameeyay all time high oo markay sameeysto dabcan correction sameeysa oo hoos bisoo taabata soo marka charts kan waxa way BTC iyo mataqaana wayna wax badan aan ka faa'iideysanay weeye soo marka taariikhiyan xiliyadan waa xiliya ugu fiican normally waxa dhalinyarada xiliyaha November December January February oo suuqa meesha ugu sareeyay oo mariyo bay badankood Soomaalida soo galaan laakiin hadda kale cid ka shaqeynaysa arkimaysa oo ku dhahayso okay this is the right time oo cryptocurrency investment ugu sameeyo hadii aad long term game ciyaar sidii hadii kalaba soo marka waxaan ku soo koobiyaa saddexdan bilood isha ku hay dabcan maantay muuqaalka adaawanaysa macnaheedu ma ina maanta maalgashid suuqa fiiri laakiin saddex bilo suuqa discount bixiya discount-ka adiga isku day marka suuqa marka guud iyo casaan yahay wali percent fiican oo bixiyo 6 10 xawayto alif kana qaar oo kale ee bixiyaan BTC-na discount fiican marka bixiso ka faa'iideyso qodobkeen labaad saaxib waxa way buy the dip strategy dabcan marar badan ba aragteen ba u maleynaya dadku haya buy the dip dadku markay maqnaan saaxib buy the dip dad baa boqo oo suuqa waxa way runtii aad u baqaan suuqa markuu soo laabto casaan yahay dadkii ku jira way baqaan laakiin dadka saaxib smart investors-ka strategy-gan buy the dip isticmaalaan suuqa markii la soo daato oo panic badan u yimaado oo runtii aad lagu baqo hadii aragti saaxib yaal suuqa guud noqday oo soo daatay discount buu bixinayaa ka faa'iideyso sidoo kale saaxib yaal dollar cost averaging DCA waxa la hajay strategy hadii aad loogu teeram game ciyaaraysin taas isku day mustali inaad ka faa'iideyso maxay kula duwan saaxib DCA iyo buy the dip muuqaal gooni ba ka sameeyay laakiin basically waxay kula duwan saaxib yaal suuqa haduu wax soo daato rinta yar haduu soo daato DCA baa la sameeyaa si markuu soo laabto hadhow waxa way meesha joogto meel kor ku buy the dip waa markuu suuqa discount weyn bixiyo weeye oo si fiican saaxib yaal loo soo daadiyo oo correction weyn uu sameeyo macnaha waa good entry qofkii ka soo gali karto saa comba ku dhaafo kale buy the dip ka mustalafi in laga soo DCN waa koon ahaysatay xogaa way soo daateen dhiig joojin baa la dhahaa waa soo mataqaana DCN ku sameeyay xogaa lacag gelinaysa si mataqaana uu soo koonankii uu soo kaaga xumaan lacagta aad ku sameeyay DCN qofka sameeyana uu ka fiican qofka DCN sameeyay long term ahaan taas saaxib yaal faa'iido badan secretary saaxib yaal hadii aan fiirin historical patent sanadii saaxib 2020 iyo 2020 August waxaan soo saaxib yaal in suuqa xilliyada samarka aad loo daadiyay xitaa 23 saaxib yaal iyo 24 ku dar haddana saaxib yaal waxa suuqa xoog loo bamgareeyay October soo marka historical halka saaxib waxaan ka baranaynaa taariikhiyan inuu samarka suuqa saaxib yaal oo aad u daato waxyaalaha keena saaxib yaal waxa kamid ah dadka fasaxyo qaadanaya fasaxyaasha waxa kamid ah qofka faa'iido kala baxay suuqa ila qof mataqaana suuqa baar siisna soo maalgashanaya bilahan oo kale saddexdan bilood kuleelaha ah dadku waxa weeye waxa qaadanayaan lacag bay kala baxayaan suuqa taas keenaysa marka suuqa inuu hoos u dhaco soo marka dadkaas lacagta la baxaya anaga waxaan laga rabaa hadii aad hore suuqa ugu jira ama lacag ugu jirtay right time suuqa la soo galo weeye xilligan oo kale xilliga lagu baxsa saaxib yaal USDD-da iyo cash takinka bay dhahaan USDD is the secret hadii aad USDD fiicnaysatid hadda kala right time suuqa la soo galo intaana saaxib yaal aan koonagis la fiilin waxaan rabaa inaad ka faa'iideystaan website-kan galecrypto.com baa lahaa runtii mashruuca uu guuleystay maalinka saaxib yaal article soo gelin maanta muuqaalka aduubi waa 9 waa kana article-kan la soo gelin waa maxay web waa ku baranaysa wax loo yaqaano sida cabasho waxa loo soo gudbiyaa socod crypto newskiina waa soo gelinaa 8 August waa shalay maantana waa la soo gelin doonaa hadda aroorbi ay tahay 10 in the morning ay tahay 9 August muuqaalkan duubaya ma garanayo maalmo kadib laga inaad daawatay editinka ay ku xirantahay soo marka saaxib yaal website-kan isha ku hay update baan soo gelinaa newska maalinle af Soomaali qoraala waa website kaliya Soomaalida cryptocurrency news daily just not kaliya mataqaan news saaxib yaal aqoon baa soo gudbinaa waa everything oo baahan tahay waxa way suuqaan maalin kasta meel baa dul istaagnaa soo markaas laga faa'iisto dhanka saaxib yaal hadii aan suuqa BTC waxa meelsa
119 meemaraysa 829 runtii waxa weeye maalmaha way soo laabatay laakiin last week kale 111 bay joogtay soo marka good entry buu ahaa hoos ka si fiican ba meesha saaxiibayaal ka banad laakiin iska sug still xataa caadiin markii loo fiiriyo meesha hore ma joogo oo hadda xataa samho dhiskun buu ku jira laakiin waxa ka sii qurux badan markuu xoog u sii daato sababtoo hadda waa yara cagaar weeye marka iska sug bilahan isha ku haay sida ma taqaanaa beeraleyda kale way saaxiibayaal cryptocurrency dadka beeraleyda way arteen season bay beertaan beeraha xilli baa la beertaa oo tusaale kale roobka intuu inuu kale ina ma taqaanaa beertii beeratin kasoo beerlayn laakiin saasan dareemaya roobka markuu yimaado kadibna season soo baxo kale soo marka isku day waa same scenario walba isticmaalsa isku day ina hadda kale cryptaha beeratid hadda kale lacag dadka fasaxay kale way baashaaleen dadka baashaal waa dadka cryptaha faa'iidooyinka kala baxay soo marka hadda faa'iido kala bixin yes aniga baa dhawey isbuuca waxaan tagayaa insha Allah talaadada maanta 9 bisha 12 bisha Kenya imaanaya soo marxta xilliga muuqaalka adaawan xaqal ina Kenya laga yaabo hadii ilaa ay soo marin soo ilaa iyo sanadka January halkaas Afrika joogi doona halkaas aan u soo badan doona soo marka fasaxyada iyo cryptaha investmentska ee la sameeyay faa'iido baa laga qaataa faa'iidada dabcan waxa way laga tagaa koon kale waa saaxiib waxa waa Ethereum koonka muuqaal gooni ka sameyn doona Ethereum baa meel fog baa loo wadaa yes Ethereum meel fog baa loo wadaa aad baa loo aroosanaya space-ka uu haystaa news-ka uu haystaa nakasta waxa la saaxiib BTC buu noqonaya caadi maaha performance uu sameeyay 7 days ka fiir hadda 20% uu sameeyay waa koon la mid ma jiro markii la fiiriyo marka kaafis ahaan marka performance weyn buu sameeynaya Ethereum aruso isha ku hay sidoo kale saaxiibayaal XRP waxa maraya 3.3 which is mataqaana okay ilaa business soo kacay talana waa 6.7 talana waa fiican yahay talana waxa ka wada waa 10 14 maraya good aad buu runtii u fiican yahay meel walba la wada soo marka all you need waxa way Dogecoin hatta mar gaar ah muuqaal ka sameeynaya koonkan aad baa taageeraa mimka ugu horeeyay weeye la soo saaray weeye Elon Musk baa mataqaana uu advert karayo soo marka aniga waxa xamsana mar kale koonka in la bum gareynayo soo marka asna saaxiibayaal hal laga faa'iisto J-Link Zui aad maahan koon kale halkan ku jira asna si aad u fiican render runtii waxa way asna eco fiican way koon kale jira saaxiib la dhaho mataqaana virtual protocol halka ugu jeeda laakiin saaxiibayaal waa koon fiican way koonka Zay asna waa koon fiican way soo marka saaxiibayaal saa u jeedaan ba fursad maalgashi weeye saddexdan bilqod financial advice ma ahan videoga disclaimer-ka markasta waxa sheega waa pure educational purpose weeye aqoon ahaan ina arintan ka dibgeeya rabaa laakiin aniga tala dhaqaale ma bixiyo this is not financial advice do your own research laakiin xilliyadaas oo kala saqsida aniga beertaa taariikhiin marka aan ka baranay these 3 months wali mid aan July aan soo dhaafnay August ugu jiro iyo early September oo kale waa xilliyada suuqa saaxiib uu daadsan yahay soo dadka mataqaana smart investors-ka xilligan bay soo galaan suuqa xilligan bay beertaan cause discount baa ku helaysaa qiimo yar baa ku helaysaa laakiin xilliyada qurbo kale qabaha u tahay ama mataqaana waxa ka dambeeya October ilaa bisha saddexaad oo kale waa xilliga suuqa aad loo bungarayo oo faa'iidooyin waaweyn laga laakiin waa raggii hore u soo biirtay ama dadka hore u soo biirtay weeye muuqaalka inta saaxiibka ku soo gabeynaya subscribe share channelka hadii aad jeceshahay cryptocurrency soo gala koorsooyinka cryptocurrency saaxiibka waa diyaar nambarkan ka dalbo 75 kaliya cryptoman scoorka 30 koorso ku jira Galabjir Academy waa school weyn online computerkaaga iyo taleefankaaga baad ku baranaysaa meel kasta joogta ka baranaysaa crypto ana macalinka halkan koorso ka dalbo ama website-kan galabjir.com si toos online oo iibso halka ka daawac casharada waa muuqaalo duuban aad baan saaxiibay in salaamiya ciao ciao